intii waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataa qodobada warkeenana waxaa ka mid ah madaxtooyada Soomaaliya oo raaligelin rasmi ah ka bixisay hadal ay dhibsatay dowladda Masar dib markii ay cadaadis xoogan lagu saaray arrinkaasi madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya u gudbiyay codsi la xidhiidha golaha wasiirada ee loo soo magacaabayo kulamo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ka socda magaalada Muqdisho dagaalka ee dowladda Itoobiya oo duqeymo ba'an ka fuliyay deegaano ku yaala gudaha Soomaaliya kaasi oo xiga dhanka xuduudda dowladda deegaanka halkaas oo ay ku dagaalamayeen shabaab iyo ciidamada liyu booliska qodobadaas iyo kuwo kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socotid wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale soo saartay raaligelin kale oo ku wajahan arrinta dowladda Masar kala dhaxaysa iyo booqashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalkaasi Masar waxaana si weyn dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo Soomaaliduba u eegayaan habdhaqanka iyo dhaqdhaqaaqyada ku wajahan sida loo maareynayo arrinta Masar waana warkii ka soo bilowday iyo xidheenka ay isku hayaan Itoobiya iyo Masaarida oo madaxweynaha waddanka Masar Cabdulfataax Asiisi uu si cad u sheegay in dowladda Soomaaliya ay la qaadatay Masar sida ay u tahay xaq qaynuuni ah in la difaaco dhammaan biyaha webiga Niilka qaybta Masar ay leedahay fayeenka madaxweynaha Soomaaliya ayaa isku dayay toddobaadkii hore inuu dadaal geliyo si uu meesha uga saaro warka ay Masar iyo dowladda Soomaaliya isku raaceen in la difaaco biyaha Masaarida laakiin hadalhayeenka warkiisa waxa uu sheegay ama uu muuqday inuu si cad u sheegay in madaxweynaha Masar Cabdulfataax Al-Siisi uu ka been sheegay labada dhinac waxyaabihii ay ka wada hadleen ha yeeshee maalin kadib isla fayeenkii ayaa hadalkaasi raaligelin ka bixiyay waxaana loo fasirtay inay cadaadis ka yimid dhinaca dowladda Qaahira oo ay ku cadaadisay dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay lagama maarmaanka u tahay inay caddayso mowqifkeeda ku wajahan arrinta biyo-xidheenka ay isku hayaan dalalka Suudaan, Itoobiya iyo weliba Masar waxa ay galaangal xoogan oo siyaasadeed iyo mid amniba hadda ku yeelanaysa Soomaaliya inkasta oo 4 sano ee la soo dhaafay ay ka mid ahayd xulafada sida weyn uga soo horjoogay xukunkii uu hogaaminayay Farmaajo haddana dhinaca kale hadda waxay aaminsan tahay inay timid dowlad ay saaxiib dhow la noqon karto imaanshihii xukunka madaxweyne Xasan Sheekh waxaa la rumaysan yahay inay Masar gacan dhaqaale ay ku lahayd sidaas oo kalena qaybo ka mid ah saaxiibadeeda siyaasadeed ee dalalka ay dadaal xoogan gelisay sidii ay u taageeri lahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dadka siyaasadda Soomaaliyeed falanqeeya ayaa leh faragelinta Masar iyo joogitaankeeda Soomaaliya uu sii xoogaysan doonaa ilaha iyo sanadaha nagu soo wajahan haddii ayna imanin dhacdooyin si degdeg ah isu bedela agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad ayaa la aaminsan yahay inuu xidhiidh iyo saaxiib dhow la yahay dowladda Imaaraadka Carabta taasoo soo jiiday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna horey ugu dawacsanaa aragtida Imaaraadka inay arrintooda sii adkeeyaan toddobaadka soo socda Muqdisho waxaa la filayaa inay yimaadaan khubaro la aaminsan yahay inay u badan yihiin xubno dhanka sirdoonka oo ka socda dowladda Masar yoolka iyo imaanshahooda Soomaaliya ilaa iyo hadda tafaasiil xoogan lagama hayo waxaase la aaminsan yahay inay bilow u yihiin furidda albaab cusub oo dhinacyada Muqdisho iyo Qaahiro u bilowday kaas oo guusoore wanaagsan uu hadda u socdo arrinta biyaha webiga Niilku xiisad weyn oo si weyn u taagan wadamada Afrikana waxay qaarkood weli si weyn ula kala safan yihiin dhammaan dhinacyada Addis Ababa waxay ugu yeedhay maanta inay dib u bilowday qabashada biyo-xidheenka wejiga labaad ee biyaha galaya ha yeeshee Qaahiro waxay qoraal u jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa kaas oo ay kaga dacwootay Itoobiya tallaabada ay qaaday Soomaaliya ayaa hadda u muuqanaysa goob cusub ay wadamada Itoobiya iyo Masar ku hardami doonaan xilli dhammaan dhinacyada siyaasadda oo dhan si feejigan ula socdaan dhaqdhaqaaqyada labada dalba ay wadaan iyada oo Itoobiya ay imaanka ku hayso in Soomaaliya ay la leedahay xuduudda ugu dheer ee dhinaca bariga haddana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda weli aan caddaynin mowqifkeeda siyaasadeed ee ku wajahan dalka Itoobiya saameyn ku leh arrimaha Soomaaliya Masar iyo Itoobiya isku hayntooda xilligan ay u soo wareegaan Soomaaliya waxaa la aaminsan yahay inay halis gelin doonto deganaanshaha amniga iyo midka siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ku tiirsan kaalmada caalamiga iyo kumanaan ciidamo shisheeye oo jooga Soomaaliya ugu dambeyn dad badan oo Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya arrinta Masar maxay u soo kordhin kartaa
kartaa marka loo eego taageerada siyaasadeed iyo midda amni ay u baahan tahay dowladda federaalka. Sidaas oo kale siyaasadda gudaha ee Soomaaliya saameyn noocee ah ayuu xiriirkan ku yeelan doonaa? Waa su'aal adag oo weli aan jawaab loo haynin, laakiin laga sugayo maalmaha nagu soo aadan. Dhinaca Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa 48 saac la bilaabay la mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xubnaha golaha shacabka. Ay kala hadlayaan arrinta ku saabsan magacaabidda xubnaha golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Muddo 10 maalmood ah oo uu codsaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in loogu daro si uu u soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh, sida lagu sheegay qoraal ra'iisul wasaaruhu u diray baarlamaanka federaalka 25 bishan. Hadda waxaa ka hadhay 4 maalmood. Madaxweynuhuna wuxuu tan iyo xalay waday qaabilaadda xildhibaanada golaha shacabka kasoo kala jeeda dowlad goboleedyada. Sida muuqata, ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxay muddo ka badan 30 maalmood ay hadda mashquulsan yihiin sidii loo soo magacaabi lahaa xubnaha golaha wasiirada ee dowladda federaalka. Boqolkii maalmood ee ugu horreysay ee muddaxileedka madaxweyne Sheekh Maxamuud ayaa gabaabsi ku sii dhow. Golaha wasiiradana way ku soo dhammaystiri waayeen 40kii cishe la soo dhaafay, iyadoo dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaalidu ay eegayaan tallaabo-qaadka xubnaha golaha wasiirada. Horey ayaanu uga soo hadalnay 5 caqabadood oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan arrinta xulidda xubnaha golaha wasiirada, laakiin saacadihii la soo dhaafay waxaa kordhaya raadiska iyo shakiga laga qabo in xubnaha golaha wasiiradu ay noqdaan kuwo wada qanciya saaxiibada madaxweynaha ee tareenka wada saara. Qaar ka mid ah ayaa durba bilaabay loolan ku wajahan sida ay u eegayaan xubnaha golaha wasiirada ee soo socda. Xildhibaanada Galmudug oo uu xalay la kulmay madaxweynaha Soomaaliya, ka mid ah ayaa ka maqnayd fadhiga siyaasadeed ee looga hadlayay dhismaha golaha, waxaana la aaminsan yahay inay si weyn u diidan yihiin qaar ka mid ah xubnaha golaha ee saami qaybsiga ka soo jeeda. Dhammaan arrimaha kulamada ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay wadaan waxay fafaale kasii muujin karaa xildhibaanada cod looga raadinayo ka hor intaan lagu dhawaaqin. Madaxda dowlad goboleedyada qaarkood horey loo aaminsanaa inaan talo laga siin doonin ayaa saacadihii ugu dambeeyey oo la xaqiijiyey inay door ku yeesheen ama wadahadallada qayb kaga soo biireen. Laakiin weli dhammaan dhinacyada oo dhani kuma qanacsano hannaanka geedi socodka dhismaha golaha wasiirada. Dhammaan howlaha dowladda federaalka ee Soomaaliya 20kii bilood ee lasoo dhaafay ku jira xaalado kala guura ayaan weli xaaladaas laga soo kaban. Halkuna wuxuu leeyahay madaxweyne, golo baarlamaan iyo ra'iisul wasaarka kalsoonida haysta, laakiin aan soo magacaabin xubnaha golihiisa wasiirada. Dhacdooyinka siyaasadeed ee wakhtigan taagan iyo siday xaaladda gobolku isu beddelayso, golaha wasiirada ee Soomaaliya oo la magacaabin waxay muujinaysaa in dhammaan marxaladaha siyaasadda ee dalku ayna weli deganayn. Baarlamaanka federaalka xubno ka mid ah ayaa durba sii bilaabay iyana olole ay kaga soo horjeedsan karaan xubnaha golaha wasiirada, laakiin rajada laga qabi karo hor istaag siyaasadeed inuu yimaado ayaa aad u hooseysa, sababtoo ah xukuumad markii koowaad ee golaha la horkeeno la diido, ama ra'iisul wasaare markii koowaad xubnaha golihiisa wasiirada diiday ma sahlano. Yeeshee in ra'iisul wasaaruhu muddadaasi oo dhan la maqnaa golaha wasiirada, saacadihii ugu dambeeyeyna ay muuqato in isaseeg uuna gacan waxba ugu jirin ayaa muujin karta sawir kale iyo filasho aan horey loo qabin oo soo degdegta. Dhammaan dhinacyada siyaasaddu inay helaan qaniicad siyaasadeed ma filayo. Ra'iisul wasaaruhu sheegay in saamiley qancinayana durba dad badan su'aal duldhigay hannaanka warkaasi uu ku yimid. Waxaa la hubo waxay tahay in saaxiibada madaxweynuhu marka koowaad ay tahay inay isku qanciyaan muuqashada xubnaha golaha wasiirada. Dadka kalsoonida magacaabidooda iyo xubnaha ka soo dhexbaxana ayaa loo eegi doonaa. Haatana, diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Itoobiya ayaa duqeymo culus ka geystay deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo Al-shabaab ay ku sugnaayeen, markaasi ay ka socdaan maalmihii u dambeeyey dagaallo u dhexeeya ciidamada liyu booliiska ee deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ururka Al-shabaab. Duqeymahani ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Rasweyne oo 50 kiilomitir galbeedka xiga magaalada Xudur, xarunta gobolka Bakool. Halkaa waxaa la sheegay inay ku sugnaayeen dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-shabaab, kuwaasi oo waday baabulka duulaanka dhanaca ciidamada Itoobiya ee xuduudda. Ilaa iyo hadda ma jiro xaqiijiyay intuu la egyahay khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi oo la sheegay in xitaa ay waxyeello soo gaadhsiiyeen dad rayidah, waxaana aad u liitay isgaarsiinta deegaanka dhaca xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya. Al-shabaab ayaa lagu soo warramay in maleeshiyaad badan ku ururiyeen deegaanada gobolka Bakool ee ku teedsan xadka gobolkaasi la wadaago dhanka dhinaca Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaana hadda ciidamo dheeraad ah ka soo daabulaysa dhanka deegaanada kale ee Itoobiya, iyadoo keenaysa gobolka Soomaalida si shabaabka xowliga ku socda maalmahani weeraradana ku hayay deegaanka Soomaalida la isuga difaaco oo gadaal loo celiyo dhanka Soomaaliya. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay. Sidaas iyo nabadgelyo.